السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام دمان أصحابتي كحران جنرال كاجا أكاديمي مركز تو أديك دعوانا إنسان سوشيال ميديا إن شاء الله بإذن الله الباري موضوع إن شاء الله واحد كجاه الدونا بإذن الله الباري دعوة ويجا أيان أقوم وعبرني إن عوان كنا ما أنت عن كهل لنا نوح كلام معها وحن كهل لنا بإذن الله الباري صدق نوع توجاه ومجال المقدسود شعب كنا الدباتوين كهيدا مشاكل بدنا كويسة ayadoo weliba ammaankii magaalada aad iyo aad u liito dabcan dadka madaxda ahi war kama hayaan wax ay shacabku ku nool yihiin oo nin kasta wax waa dabaqiisu turkiisu isaga nool yahay balse dadka ku dhex jira shacabka dhex socda ee anaga ah isticmaalada social media qofka social media isticmaala laakiin wax dadka u soo gudbina ayaa la socono og dhibaatooyinka shacabka magaalada muqdisho ku haysto anaga nagu haysta oo na haysta muuqaalkan waxaan ku tilmaami doonaa saddex nooc oo tuuga ah oo magaalada muqdisho ka dilaacday aad iyo aadna saameyn buuxda ugu leh bulshada iyadoo hadda heer lagu sugan yahay qof walba oo guriga ka bixi karin haddii habeen la gaaro waqti habeen ay dhacdo oo habeenba la gaaro qoraxduba ay dhacdo in guriga laga bixi karin dhibaato badan ay jirto saddexdan nooc oo tuugada ayaan rabaa inaan kaga hadlo waxaana tilmaami doonaa sidoo kale waxyaabaha keena iyo dhibaatooyinkaasi marka ay yimaadaan waxyaabaha astaamaha markaasba ay la dareemayeen dalka ka jiraan gudihiisa sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa aan ku tilmaami doonaa bal haddii waxaanay sii jiraan oo ay sii socoto arrintani oo sidaanay ku socotaan wax laga qabanin si waxa ay noqon karto probability aan ama possibility ka soo bixi kara isu bedeli karto saddexdaa nooc waa saddex nooc oo saddexda tuuga yihiin haba kala daraadeene nooca koowaad oo maanta horta bulshada aad u hareeyey meel kastaan cabashadooda taallaa waa ciyaal weero ciyaal weero maxay yihiin ciyaal weero waa ciyaal maanta qof walba muqdisho oo garanayo waa ilmo wada dee la kuuran yahay kuwada nool xaafad ama haddee la kuuran yahay magaalada muqdisho ku nool isbahaysto isu yimid waxa ay isu bahaysteen ay tahay dilka iyo dhaca ummadda shacabka ee ku nool magaalada muqdisho iyo meelihii kale ay ka jiraan dadka inay dhacaan oo ay baabi'iyaan ayay isu abaabuleen xaafad kastana way ka abaabulan yihiin magaca qaasay qola kastaa la baxdaan magacaas qaaska ay dadka ku weeraraan meelaha ay maanta marayaan halistooda waxa weeyaan waxay marayaan heer ay meel kastoo lagu ganacsaa ay tagaan kadibna ay weydiistaan baad iyo canshuur ciyaal weeradu waa nooc ka mid a gaangiska ama haddee la kuuran yahay waxyaabaha gaangiska lagu yaqaana burcadda waaweyn oo dadka dhacda maalkoodii naftoodii maalkoodaba aan midna ka tegin ayay ka mid yihiin طبعا عيال ويرو wax meel fog ka yimid meel kale ma ka yimid maahan waa ilmiheennii ama dee la kuuraya carruurteennii guryaha joogtay ee hooyooyinkii aabbayaasha Soomaaliyeed ay dhaleen waalid kastana wuu og yahay uuna ka warqabaa cunugiisu inuu ka mid yahay ciyaal weero cunugii ciyaal weero ka mid ah waa noocaas oo nooc la yiraahdo ciyaal weero nooca labaad waa nooc run ahaantii cajaa'ib oo la yaabay u dhaqmayaan noocaana qaybtan waxay sameeyaan waxay u tagaan waxay arrintan aad ugu badan tahay waalidka carruurtooda cabtooda ay tahay daraagiska lagu hatalakeeyey waxay sameynayaan waa shirayaan odayaal kuwa weyn oo nimo weyn oo dee u yaar 30 jir 40 jir la socdo waa weyn oo ayaguna cabtooy kala marka waa la shirayaa maalinba waalid baa loo shirayaa maxaa loogu shirayaa waxa la leeyahay waalid hooyo heblo ama ninkan waalidka ninkan hooyadiisa ama hadee la kuuran yahay ayadiisa ama qofkii markaas hayo dhibaatadaas dareemaya cunugiisa ku jiro ayaa waxa leeyahay waxaan isaga dhigaynaa tabliiq waxa la qaadanayaa dharkii qamiisadii dee la kuuriyay tabliiqa waxa la qaadanayaa koofiyadii waxa la qaaday caamadihii hooyada loo tagayaa waxa hooyadii loo sheegayaa in wiilkeeda dhibaatada ku jira ay arkeen nimanka culimada iska dhigaya kadibna ay yiraahdaan hadda anagu waxaan rabnaa ilaahay kuma samadiiday in aan wiilkaaga waa wacdinay maanta dhan aan waaninaynay diinta xoogaa waa dee qalbigiisa waa jilcina hadda waxaan rabnaa inaan wadno oo aan hadee la kuuranya bal aan diinta soo fahansiino 5 beri 6 beri aan soo wadaynaa tabliiqaas waa anagana wadda waa ka dhaadhicnay waana kana goliyo waa ku keenay marka waxaa laga rabaa hooyo inaad diyaarido hadee la kuuran yahay wixii khidmadii uu ku bixi lahaa 4 beri ama 5 beri ama 6 beri oo bisha la baxay inta iyagu marka ay sheegtaan wixii uu ku bixi lahaa oo hadee la kuuran yahay socodkaas lagu mari lahaa did marka ahaa inaad bixisaa la rabaa insha Allah waxaan anaguna ku dadaalaynaa wiilkaaga inaan hadee la kuuray ka samata bixinad waxaan oo diintaas fiican ugu ban yani diinta ku qaraabanayaan
hooyadii wixii ay heday humaysaa isku duwaysaa way u dhiibaysaa markay iridda ka baxaan 10 daqiiqo wiilka kaa maqnaa ama 20 daqiiqo kaa maqnaa ama 20 daqiiqo kadib uu kula joogaa wiilkaagana abaabulay arrintaas waa dhibaato dadka haysata iyaduna maanta oo jirta oo aniga dad hadda ay soo wadaagay dee la kuuriyay arrintaas ay sheegeen $400 ilaa $300 lacag gaaraya looga qaato dadkaas nooca labaad nooca saddexaad ayagu waa nooc kale ayagana qorshahoodu dadkan waa dad sir u soo baxa ayaga waxayna aad ugu badan yihiin meelaha ganacsiyaasha meelaha ay dhacaan ganacsiyaasha yararka waliba dadka miisaska ku shaqaysta ama haddii la kuuraya miisaska cabitaanada leh ama meelaha yar ee sandaqadaha waxa la midka leh waxay dadkan aad iyo aad ugu badan yihiin dadka markaas ku cusub magaalada ama haddii la kuurayahay qofkii marka ayagu ay dareemaan inuu markaas uusan qof filjigan ahayn waxay sameynayaan dadkani qof baa lagu daba dhigayaa qof baa lagu soo dirayaa qofkaasa wuxuu sameynayaa wuxuu isku dayayaa inuu biinkaaga 4 mar sirta u ogaado meeshu doona ha u maro 24 saac bil ku qaato ama maalmo ku qaato qofkaas uu ku daba joogayaa ilaa uu ku ogaado 4 mar sirta maalinta 4 sirta uu ogaado miskiin baa la seeka soo dhigayaa maalinkaas waxa la seeka soo dhigayaa qof miskiina waxa inta miskiinka la seeka dhigaya lagu matalayaa in taleefankaaga mar un laga qaado hal mar uu idib lugiyaa taleefankaaga ku shaqaysanaysa kadib marka lafta ama taleefanka laga qaado qofkaasi wuxuu ka bixinayaa laftii uu ka siibayaa laftaygu ku gelinayaa taleefanka markuu taleefanka lafta feega ku gelsho qofkii waa laga tagayaa taleefankaaga lagu siinayaa laftayga ku jirto laga tagayaa intaad shidan ka hor nin mid kale u diyaarsan kaas kale loo sii dhiibayaa laftii taleefankii la gelsho laftiiba bas kana wadadu ka baxaya jidku laba luuq soo rogaya kanuna aalga sarif u tagayaa lacagta waa ka sarifanaya lacagta markay sarifto oo loo sarifo lacagtii ama dhowr lafdood lacagta ku tuuraya lacagta loo sarifaa lafta iska tuuraya iska tagaya shirkadda horumar markaa tagto waxa uu leeyahay sarifo lacag laga celiyo sarifniha lacagta laga celiyo horumar ka celin maydo qofkina sidaas uu lacag ku waay arrintan ayadana waxaan aad iyo aad dhowr qof ilaa 5 qof ilaa 6 qof ka badan ay qabsatay magaalada Muqdisho waana arrintaas xoogaa uul ku magaalada ku cusub kuna soo badanaysa haddaba saddexdan nooc oo tuugada waxaan dhammaan ogeysiinayaa bulshada Soomaaliyeed dhammaanteena is ogeysiinayna inaan ka digtoonaano balse midda ugu daran dhibaatada ugu weyn ku haydeen laga digtoonaan kareynin oo dhibaatada keenaysa weyn waa ciyaal weero maxaa sababay horta ciyaal weero in dhalato maxaa keena ciyaal weeradu inay dhalato waxa keena waxa weeyaan waa daroogada oo ku badan magaalada Muqdisho aad ugu badatay haddii qamri aaleed haddii xashiish aan lahayd waxa uun darooga iyo nooc oo magaalada haddii qamri aan lahayd haddii caraq aan lahayd haddii balaayo kale lacab aan lahayd oo maanta sandaqad kasta meel kasta sandaqad baa laga dhisay waxa waaye meel kasta waxa soo tiirsan caagada sida waxa waa qaclo weeyar caqaclana aan ahayn qamri iyo balaayo ay ka buuxiyay darooga ay ka buuxiyay waxa baa la wada cabayaan dhalinyaradu wada cabayaan maanta iyadoo ay keentay shaqo la'aanta ka jirtay magaalada Muqdisho control la'aanta ka jirtay magaalada Muqdisho la socod la'aanta ka jirta hadda la kuuroon yahay waxyaabaha la keenayo la soo gelinayo magaalada cidina la socon cidina ay controlin controlkooda badnayn meel kasta day la kuuray ay taal ama macquulta suuragal taaba inay ka ganacsadaan dad hadda la kuuroon yahay laga hiibaystay ka mid ah maamulka hadda la kuuroon yahay marka wadanka maamulka ay dhici karto ayaduba ay suuragal noqon karto marka arrintaas ayaa sababta horta daraagiska ugu horeeya laba waxa ku xiga shaqo la'aanta wadanka ka jirta oo keenta ayadana inay sidaan noqdaan 3 in dad bamgareehay ay jiraan waxaan oo markii ay timaado waxaan bushgareynaya in kor u socoto heerka ay maanta marayna waa soo sheegnay waa in ay yimaadaan xarun ganacsi lagu ganacsanayo kadibna ay baad weydiistaan yiraahdaan baad baan ka rabnaa haddii kale ganacsigaaga ma soconayo meesha oo burburinayna dhibaato ka jirta inaan habeenkii la bixi karin oo magaalada la mari karin oo ay qofkiina dilayaan wixiisina way ka qaadanayaan qofkii way dilayaan marka arrinkaas waa arrinkooda ugu daran oo magaalka haysta marka siyaab maxaa looga badbaadi karaa ama intaas looga hortay karaa horta marka koowaad ka hortagooda waxa iska leh dee la kuuraya cidda markaas wadanka maamulka ku hayda ayaa iska leh waxaa looga baahan yahay inay xal u keento arrintan dhibaatadan dadka shacabka haysata inay xal u keento marka labaadna cidda looga baahan yahay waa waalidkii dhala dadkaas oo loo baahan yahay in ilmahooda controlshaan ilaashadaan marka saddexaadna dadka shacabka ah ee markaas degmo kasta ku nool waxa looga baahan yahay in ayagu is-aabulaan kadib dadka sidaas sameynaya iska qabtaan marka afraadna qof kasta looga baahan yahay inuu hadda la kuuraya arrimahan aan u sheegi doono uu isku dayo inuu sameeyo oo ay u badan tahay qofka inuu badbaado waa marka koowaad
wixii hanti aad leedahay haddii hanti lacageed tahay oo telefonka kugu jirto madafaad ku nacsay tahay guriga dhigo ama guriga dhigo laf aad markaa lacagaha ku shubato kugu qaaskaa lacag kastoo hadday kuuso telefonkaa soo gasha badanana telefonkaaga gudaha laftaa guriga ku taala ku shubo waa marka labaad lafahaaga lacagu kugu jiraan ama ay qasnadaada ku ah ha qaadina guriga dhigo waa marka saddexaad haddee la kuriyan magaalka hala marin telefonadan waaweyn haddee isticmaalno hala marin magaalka haddii maqrib la gaaro waa marka afraade hub haddii aad leedahay qaado wuxuu rabo ahaa ulba ugu yara ushaada qaado hore u qaado haddii aad ushaa hubkaaga wadato waxaad awood yeelanaysaa inaad waxba iska dhiciso qofna kuguma soo dayi kara markaas marka hub haddii aad leedahay haddii meeshii maqrib lagu gaaro magaalada hubkaaga hore u qaado waa arrinta waan kula talinaya dhammaan inaad hubkaaga hore u qaadato wixii naftaadii maalkaaga kugu yaan aad iskaga dhiciso haddii aad wax ugu yaraan haddaad maanta u wadato dadka lagu soo weeraro caaway waxaad awood u yeelanaysaa inaad iska caabiso kadibna aad cagaha kaga fagtaad awood yeelanaysaa marka haddaad adigoon hubna wadan alaabtaad inay sita magaalada muqdisho inaad dhex marto ku dhex lugado ku dhex socoto taasi suuragal waa noqon weysay ilaahay hadduu ka badbaadiyo qofkan ilaahay ma badbaadaya laakiin taxadarka ilaahayna tala saaro haddii alla subxaana watacaala ducooyinkiisa akhriso oo ducooyinka soo aroro guri marka laga baxayo markii lasoo galaayo akhriso sidoo kale hubkaagana qaadee dooljignow taxadar ku mar meel kastoo aad maraysid filayaa inaad fahanteen barnaamijkaas ayaan jeclaystay inaan la soo wadaago dhibaatooyin magaalada dadka muqdisho haysta ka mid a inkastoo aanada aan ahayn shaksi caan ah oo haddee la kuuriyo videogiisu laga yaabo inuu meelo badan gaaro ama haddee la kuuron yahay barmuusha dadka wada gaaro waxaan adigana daawanaya kaa codsanaya inaad gaarsiiso dadka haddee la kuuron yahay asxaabta videogaa sheergarayso si dadkaas qof uun videoga intuu daawado uun arrimaha u raaco uun uga badbaado burcadda magaalada haddee la kuriya joogtay ummadda islaamka dhiigooda iyo haddee la kuri naftooda banaysatay intaas kusoo koobayaa videogaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu